abshir aadan maxamed iyo xafsa maxamed macallin waa lamaana aan maanta ka hor is arkin maqal mooye. abshir waxa uu ka tirsanaa argagixisada sanadihii tagay waxa uu si gaar ah qayb uga ahaa maleeshiya duurgal ah oo ku jira furimaha galgaduud. raafaadka kaymaha iyo gumaca geesiyaasha isbiirsada ayaa sabab u noqotay in miirkiisa uu u soo laabto isagana soo taga argagixisada. daawashada shaashadaha iyo la socoshada dhacdooyin wareedka joogtada ah ayuu ka ogaaday in afadiisa ay hortaagan tahay maxkamadda ciidamada iyadoo loo haysto inay isaga ku kaalmaynaysay dembiyada khawaarijta ay ka galaan dadka iyo dalka. si gaargaar ah ayaan ula kulmay xafsa iyo abshir waxaana mid kasta ay weydiiyey cadeymaha muujinaya inay yihiin lamaane. diiwaanadii aan ka qoray ay isaga mid ahaayeen tusaale sida xiriirkoodu ku bilowday cidda isku doontay nambarada ay ka wada xiriirayeen waalidkoodii dheeraad. anigoo kaalmo ka helaya hay-adaha ay qosaysa arrimahan ayaa ugu dambeyn isku keenay inay sarkaan lamaanahan ku wada ballansanaa ceelbu markoodii ugu horraysay. ma jira faham dhexdooda ah marka laga reebo inay haystaan waalid iyo qaraabo isku og oo aan kala xiriiro telefoon gaar ah. abshir waxa uu dawladda weydiisanayaa gaar ahaan garsoorka ciidamada in loo siiyo xorriyaddeeda xaaskiisa haddii aysan jirin dembi aan ka ahayn in isagoo al-shabaab ay u socotay. horta gabadhaas xafsa maxamed macallin dhaanaa qabay anigana waan imaaday dawladdaan u imaaday markii hore haddaan shabaab hadda waa imaadimo marka waxaan rabaa gabadhaas madaxay in lagu daayo la ii soo daayo xornimadeeda la siiyo ayaan rabaa maxkamadda saasaan ka codsanay.